iscasilaada qaar ka mid ah madaxda ururada soo baxay xaaladda weli ka aloosan sool iyo wakhtiga iskuraya ee aan sugayn qofna waa qaar ka mid ah qodobada wax la iska weydiinayo inay wax u dhimi karto qabsoomida doorashada ururada ee wacadka uu ku maray madaxweyne biixi inuu qaban doono maanta waxa yaalan go'aankii maxkamadda sare in ururadii la furo aniguna go'aanka maxkamadda sare sidiisaan fulinaya fulin buu taagay waxaa jira dhowr qodob oo suurtagal ay tahay in dib loo dhigo doorashada ururada isla markaasina xisbiyada hadda jira wakhtiga loo cusboonaysiiyo si ay u galaan doorashada madaxtooyada muddo dhaafka ah warbixintan waxaynu ku eegi doonaa 5 qodob oo doorashada ururadu aanay suurtagal u ahayn 1 cadaadiska Itoobiya dawladda Itoobiya oo u xusul duubaysa in xal degdeg ah loo helo xaaladda laascaanood ayaa doorasho loo dhan yahay waxay u aragtaa xal dheema u noqon kara xiisadaas waxaana cadaadiskan wax ka bedeli kara dhabihii doorasho ee xukuumaddu ay qorshaysay taas oo meesha ka saaraysa in laba doorasho oo isdaba socda ay dhacaan sida uu qorshuhu ahaa waxa iyaguna dhankooda cadaadiska qayb ka ah wadamada arrimaha doorashooyinka ka taageera Somaliland iyagoo xukuumadda ugu baaqay in la qabto doorashada madaxtooyada isla markaasina sheegay in ay ka walaacsan yihiin muddo korinta labada sano ah ee xukuumadda loo sameeyay 2 dagaalka ka dhacay laascaanood waa qodobka ugu weyn ee hortaagan doorashada ururada suurtagalna maaha inay qabsanto ilaa inta ay siyaasad ahaan arrintaasi dhinac u dhacayso sidoo kale siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Sool ee iska casilay ururada ay hogaaminayeen ayaa ka dhigaysa doorashadan in la iska laabo oo xal kale la doono 3 culayska dhaqaale marka meel la iska dhigo cadaadiska Addis Ababa waxa adag in laba doorasho ay komishanku muddo yar gudahood ku qabtaan sabab la xiriira arrimaha dhaqaalaha maadaama oo doorasho walba ay ku baxaan malaayiin dollar inkasta oo doorashadii ugu dambeysay boqolkiiba 70 ay xukuumaddu bixisay dhaqaalihii ku baxay haddana taasi ma aha mid caawinaysa in laba doorasho ay dhacaan bilo gudahood waxa iyaduna baxnaano u baahan xanabta ay doorashooyinku bulshada kaga tagaan maadaama oo weli aan loo bislayn hanaanka dimuqraadiyadda ee qaadatay Somaliland 4 diidmada mucaaradka xisbiyada mucaaradka ah ayaa ku doodaya in xukuumaddu aanay daacad ka ahayn doorashada ururada isla markaasina sababtii loo furay ay ahayd si loogu xalaalaysto muddo kororsiga madaxweynaha waxaana asxaabta mucaaradku ay raacsan yihiin soo jeedintii komishanka doorashooyinka qaranka ee ahayd in doorashada madaxtooyada ay ku qaban karaan 9 bilood oo ka bilaabmaysay bishii Diseembar ee sanadkii tagay taas oo ay hadda ku taagan yihiin in la dhaqan galiyo arrintan ayaana ka dhigan in 5 bilood kadib dalku uu doorashada madaxtinimada u dareero waana cadaadiska ugu weyn ee hadda uu wado xisbiga mucaaradka ah ee wadani 5 khatarta xisbiga kulmiye kala furfurashada siyaasiyiinta xisbiga talada haya ayaa noqon karta sabab ay xukuumaddu uga labalabeyso doorashada ururada waxaana xisbigan isaga baxay siyaasiyiin miisaan culus ku dhaxlaha kuwaas oo kaalin laxaad ka soo qaatay guushii doorashada madaxweyne biixi ee sanadkii 2017 qaarkood ayaa furtay ururo siyaasadeed kuwa kalena waa ay ka dib jireen sidoo kale xisbigan ayaa guuldarro kala kulmay doorashadii isasaarka ahayd ee 2021 taas oo laga saadaalin karo natiijada uu ka keeni karo doorashada ururada waxa iyaduna aan weli cadayn in madaxweyne biixi yahay musharax taas oo ah arrin la xiriirta qodobkan xisbiga kulmiye isla markaasina ka mid ah qodobada saameynaya qabsoomida doorashada ururada siyaasadda